ninkeedii iyada qabay ayaa ku xujiyey inuu keento aabaheed haddii kale aanu tusayn 5 caruur oo ay dhashay. gabadhan oo ilmada ceshan weyday ayaa sheegtay in aabaheed ay sabab cajiib ay ku weyday. haddaba maxay tahay sababtaasi? barnaamijka ayaynu maanta ku daqaadayna. ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u guda gelin, haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaada la wadaag, kusoo dhawaada barnaamijka. waqtigu imaroono ragga igama saaro adana imaridaye 5 caruur ayaa ii jooga bay tiri. ninkayga waxa uu igu xujiyey inaan aabbahay u keeno. aabbahay aniga oo yar ayay hooyaday ay kala tageen, ma aqaan meel uu ku nool yahay. hooyana aniga oo yar oo jira 5 sano oo keliya ayay geeriyootay. ayeeyo hooyo dhashay ayaa isoo korsatay, iyadana hadda lama nooli. dhowr mar ayaa guriga fashilmay ayay tiri gabadhani. dhowr mar ayaa guriga khasaaray sababo aabba la'aana dartiis. ninkii aan guursan rabo wuxuu ileeyahay aabbaha aaway, anna aabbe meel aan ku ogahay haba yaraatee ma jirto ayay tiri gabadhani. walaal ila dhashay malahan oo ma jiro, oo koonkan dhuleed ma ku jiro. hooyaday keligay ayay ii dhashay bay tiri gabadhani. hooyo iyo aabbe iyo walaal ii jooga hadda malahan. mustaqbalkayga mugdi ayaa igu jira. caruurtayda aabbahood wuxuu ileeyahay aabbaha ii keen. meel aan wax ka bilaabo malahan. aabbahay waxaa laygu sheegay inuu ka soo jeedo beesha abgaal, kana sii yahay agoonyare, kuna nool yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. balse weligay maan arkin bay tiri, oo dadka kama aqaano. waxaase sidaasi tiri nasteexo daahir xuseen oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, iyadoo waraysi siinaysay cabdicasiis riyali oo ah youtuber caana oo badanaaba qisooyinka ka soo gudbiya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. cabdicasiis riyali ayaa waraystay gabadhani, waxaanuu ka waraystay xaalkeeda iyo sababta uu ninkeedii ugu xujiyey inuu aabbaheed u keeno, isagoo su'aalo dhowrana weydiiyey. gabadhani ayaa waxay sheegtay inay tahay qof aabba la'aana, aabbaheedna uu kula nool yahay isla magaalada muqdisho, oo aanay dadka ka garanayn, dadkana aanay ka aqoon. 5 caruura ayuu haystaa, ma ku tusayo ayuu yidhi ilaa iyo inta aad aabbaha ii keenid. balse bay tiri dhowr jeer ayaan isku dayay inaan isaga baryo, balse go-aankiisi ayuu ku taagan yahay. waxaan isdhahay guurso. guur fara badan ayaa iga khasaaray, rag badan ayaa iga tegay. waxaa la iga tegayaa mid kasta markaanu shukaansiga aanu ku dhex jirno ayuu iga dhaqaaqayaa. markaa uu weydiiyo aabbahay, anna aan meel ugu sheegi waayo. gabadhani ayaa oohin afka qabsatay muuqaalkaasi dhexdiisa. waxay sheegtay in ragguba aanay ku soo hiranayn. ma garanayo waxaan sameeyo. aabbahay muqdisho ayuu igula nool yahay, mana aqaano. aniga ayayada ayaan la soo kiray ayay tiri gabadhani. gabadhani ayaa lagu magacaabaa nasteexo daahir xuseen oo ku nool magaalada muqdisho. aabbaheed waa beesha abgaal, waxauna kula nool yahay isla magaalada muqdisho. waxa uu abgaal ka yahay beesha agoonyare ee degta magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya. haddaba cabdicasiis riyali ayaa hooyadan waraystay, ayaan barnaamijka iyo muuqaalkii ka duubay iyo waraysigii aan idiin soo gudbin doonaa. amba culeyska ugu weyn ee dhanka aabba la'aanta ka haysta muxuu yahay? waxa iga haystaa aniga ninkii aniga qabay inuu idhahay aabbahaga u baahanahay, sana markaasna aan aabahayga aan haysanno, hooyadii ii raadileed ee iga dhimatay. markaasaa kugu dhalatay? markaasay u dhalatay. maahani aniga aabbe markaas culeyska weyn oo ikor waxay tahay ninka aniga iga qabay ay dhahay aabbahaga u baahanahay, isla saacaasna aabba aan haysanno meela ka raadiya aan aqoon. dhiban ha oynin aabbaha haddii uu leeyahay goobayaa aabahayga oo weligii haleena aan arkin, aan raadinayaa daahir xuseen. aabbaha daahir xuseen weligaa maadan arkin? sidee ku dhacda aabbaha weligaa naadan arkin? aabahey weligeyga maan arkin.
anigoo yar oo micnaa 3 bilood jiro waxaa la geeyay meel gobol oo Dhuusmareeb la dhahayo anigoo 5 sano jira la keenay ayay soo korsatay 5 sano anigoo jira markii la keenay hooyaday waxay isku dayday inay aabbeey ii geyso hooyo markay way u suurtageliyay ayay soo korsatay waxaa la yiraahday oo aabahaas soo raadsada gabadha ay imaado hooyana dib dambe uma noolaan way dhimatay ka xunaa soo rala naxariisto amiin hooyo markay dhimatay oo ayayana lagu wareejiyay kadib intaas kadib yaa ku hay intaas kadib ayay iyo reer abtiyaashii soo korsadeen aaban dib dambe uma aan arkin iyo hooyan way iga dhimatay haye marka dhibaatooyinka ugu waaweyn aad tirsanayso intaan u gudbin aabaha magaciisa dhameystiran waa lagu sheegay aabahayga Daahir Xuseen Daahir Ayuub aad ii sheegay bas ma lagu sheegay aabaha cid Soomaali uu ka yahay ha haye aabahayga waxa lagu sheegay abgaal inuu yahay haye waxaa kala leedahay harta abgaal waa agoon yar waa lagu dhahay meel lagu tilmaamo aabaha ma jirtaa ha aabahayga xamro joogay aniga aabahayga iyo hooyadeed waxay isku barteen Kaaraan hotel Fuen meelahaas waa gartay hadda adiga xaas ma tahay ها حاسة شن عرور هواي ضاعي شن عرور هذا مركا إيمات عنقنا ودتي مركا شنت عرور أبود مو جوكتين مايا شنت عرور أبودا إن ميدا على هذا لكن ميدا أصل جوجنا ما الله بعنك أو هاي ما أشكت إن برامج كاس بعض جوب كاس ماين يسوع وفصح مسوقات وعبارة هذا نيس وسوي سلوكتين سلوكنا حنونك وين amba culayska ugu weyn ee dhanka aabalaanta ka haysta muxuu yahay waxa iga haysta aniga ninkii aniga qabay inuu idhay aabahaga u baahanahay sina markaasna aan aabahayga aan haysan hooyadii ii raadilad ay iga dhimatay markaas kugu dhalatay markaas ay u dhalatay maani aniga aabe markaas culayska weyn oo ikor waxay tahay ninka aniga qabay ay dhahay aabahaga u baahanahay isla saacaasna aaba aan haysan meel ka raadi aan aqoon dhibana weynin aabaha hadii uu nool yahay helaa noloshaana saaska ah marka mar raadiso oo mas'uuliyad ina baad goobta aabe maya adiga ku imaad is meel kale ka raadiyo ma jirto asku day ina raadiyo sembiri laakiin si ma raadiyo meel kale ka raadiyo ma jirto mas'uuliyad ina raadiso dad ay yaqaanaan familka sida adeer iyo wax laga sheegay ma jiraan adeer iyo waxaas dhan ma sheeg laakiin si aabiye waxa leedahay cidiis waxay ka soo jeedaan reer ceel cadwaaya malahan aabaha waa leeyahay aabaha sawir iyo waxna laga maxay maya hooyada ii sheegi lahayd hooyadeeda waa ifkay ka tagtay ma hooyadii ii geelayd oo markaas ii geelayd hal sano ma siin walaani ba aniga 5 sano jiro ee dad gabadhan waa wada aabaheeda u geeyna ayeeyo waa yeelahayd way ugu adkaatay waxay tiri gabadheeda ma ku siinay ninkaas ii keen sidii ayay ugu heysatay hadda ayay ma nooshahay ha ayadii way nooshahay ayay ma xasuusan kartaa aabaha familkiisa maya ayay wiligeed ma is arkin waxaan u badan tahay dhib ma lahan waxaan jeclaan in aabaha ina hesho oo ilaahay ku sahlo aabaha si uu ku garto hooyada magaceeda noo sheeg hooyadeeda magaceeda waxaa la dhahaa Qadro Cabdullaahi Siyaad naanes meeled maya naanes ma ku ogeenan hooyada sawir ma haysaa maya hooyadii sawir ma gaay sawirkeeda dhan lama hayo ma tilmaami kartaa hooyada maya qof nuucay maya ana hooyo mi soo korsan ayay soo korsatay hooyadii ma qiyaasi karo iyadoo yar dhimatay ana 5 sano jiray dhimatay ka xunnahay hadda hooyadana way dhimatay aabahayna faraq ma hay oo adeer meesti walaal sidoo kale intuu wax walaal ma dhalan waayahay